run ahaantii maanta halkan waxaan isugu nimid in aan arrin yar oo kooban ka hadalno sidaad la socotaan waxa waayadan wasaaradaha waxbarashada federaalka iyo dowlad goboleedka aad looga shaqeynayay barnaamijkii diiwaangelinta iskuulada iyo ardayda kaasoo ahaa imiskii ama education management information systemskii ama xogtii waxbarashada oo mataqaanay iskuulada iyo ardayda waxaan rabaa marka horeysa inaan u mahad celiyo wasiirka oo ay intaan labadan barina la joogay aan ka wada hadlayna arrimo badan maadaama uu wasaaradda ku cusub yahay arrimo badan oo la xiriira sidii loo wada shaqeyn lahaa iyo mataqaanay shaqooyinka hadda yaala oo runtii uu ku soo biiray waxaan kaliya rabnaa inaan arrintaana kaga hadalno sidaan u xoojin lahayn loona dhammaystiri lahaa xogtii ardayda iyo iskuulada waxaan ayaan dhawey taqaanay campaign runtii oo dad badan gobolka Banaadir iyo dowlad goboleedyada ay mataqaanay ka soo qayb qaateen si fiican looga shaqeeyay waxaan ognahay xogta أهمية أولادها وحبرشة أهمية أولادها قرشين وحبرشة هي أهمية أولادها قرشين تدلك سيد الله سعوتان وحالة بالله إن لفوليو برامج قرشين تقرن كدلك كاسو مرة متقناي قطمة باهدة وحبرشة دلك أنا كوزارة أهان وحان وباهنا هي إن عن معموليات إسكول هذا guddoonka waxbarashada gobolka Banaadir iyo wasiirada waxbarashada dowlad goboleedyada inaan si dhow uga wada shaqeyno sidii loo dhameystiri lahaa waxaan qabanay muddo kooban in la soo dhameystiro waxaan ognahay in ay wali meelaha qaarkood aysan soo gudbin annagoo laga yaabo inaan u diyaar garowno haddii xanuunkan safmarka uu mataqaanay noo saamaxo in imtixaankii la qaado marka laakiin wax kama rabo inaan ka hor dhaco arrimahaas laakiin waxaan kaliya rabaa maanta inaan adkeeyo in hadduu ilaahay ku roon yahay loo diyaar garoobo sidii loo dhameystiri lahaa waaxda qorsheynta wasaaradda imiska iyo dhammaan waxyaha kaleba waxaan farnay inay u diyaar garoobaan dhameystirka barnaamijkaas waxaan rajaynaynaa in maamulayaasha iskuulada heer dowlad goboleed iyo heer federaalba in iyo caasimadaba in la dardargeliyo arrintaas waxaan u qabanay muddo kooban oo isbuuca in lagu soo dhameystiro waxaan rajaynaynaa iskuul walba oo ku yaala caasimadda iyo dowlad goboleed inay ka soo faa'iideystaan waxaan ka codsanaynaa wasiirku haddana la joogay wasiirada kale dowlad goboleedyada in ayadana arrinta door fiican ay ka qaataan maxaa yeelay xogtaas waa xogta aan wax walba ku dhisayno haddii aan lahayd diyaar garowga imtixaanka mustaqbalka aan rajaynayn in la qaado iyo haddii aan lahayd qorsheynta waxbarashada ee sanadka soo socda waxaan kaloo rabaa inaan ku daro runtii wali ayadoon go'aan laga gaarin arrimihii imtixaanaadku aan rajaynayna mar dhow in ay hawshiisa go'aankiisa ay dhammaystiranto iyo guud ahaanba waxbarashadeena academic yearka ama xilli sanadeedka soo socda oo ayadana aan rajaynayna sidii noqonayso ka wasaarad ahaan anaga diyaar garow ayaan bilownay oo aan ugu diyaar garownayno sidii mataqaanay manhajka qaranka looga dhigi lahaa manhaj digitalization ah oo inta loo duubo casharadii loo sii diyaariyo si sanadka soo socdo mataqaana diyaar garowgaas loo fuliyo waxaan rajaynaynaa in ay waalidiinta iyo ardayda Soomaaliyeed ay si fiican uga qayb qaataan gaar ahaan fariintan waxay ku socotaa maamulayaasha iskuulada heer caasimad iyo dowlad goboleed waxaan rajaynaynaa insha Allah taala wasiirada dowlad goboleedyada iyo maamulka gobolka Banaadir ayagana inay doorkooda ka qaadan doonaan oo ayagana wacyigelintan hadda aan sameynayna inay qayb ka noqdaan haddii Ilaahay yiraahdo waxaan rajaynaynaa xogtaas oo dhammaystiran in ay soo gabagabowdo si aan u helno xogta rasmiga oo kama dambaysta ah sina loo daawaco mataqaanaa xogtaas loogu qotamiyo qorshaha sanadka soo socda waxbarashada iyo baahiyaha waxbarasho ee mataqaanaa islaamka xogta waxay naga saacidi doontaa meelaha ardaydu ku badan yihiin iyo meelaha ku yar yihiin iyo meelaha u baahan in iskuulada fasalada la sii kordhiyo meelaha u baahan mataqaanaa in wax laga qabto ardayda baahiyaha gaarka qaba meelaha ku badan yihiin ama iskuulada dhigtaan marka aad iyo aad u mahadsantihiin kaliya waxay arrintaas aan rabnay inaan xoojino